Assalaamu calaykum. Halkan waa Ogaal HD. Maanta waxaan idin wadaa xaqaa'iq juqraafiyadeed iyo macluumaad la yaab leh oo kala duwan oo ku saabsan dalka Hindiya. Ku soo dhawaada mawduuceena maanta. Hindiya waxay dhacdaa koonfurta qaaradda Aasiya, waxayna xuduudo la leedahay wadamada kale ah. Dhanka galbeed oo ka xigta Bakistaan, dhanka waqooyina waxaa ka jira Shiinaha, Nepal iyo Bhutan, iyo dhanka bari oo ka jira Bangladesh iyo Myanmar. Caasimadda dalkaasi waa New Delhi. Hindiya waa wadanka toddobaad ee ugu weyn bed ahaan qaaradda Aasiya. Bedkeedu wuxuu gaarayaa ilaa 3.29 kiilomitir isku wareeg. Sidoo kale waa wadanka labaad ee ugu dadka badan caalamka. Dadka ku nool wadanka Hindiya waxay ka badan yihiin dadka ku nool Iraq iyo Imaaraadka Carabka marka la isku daro. Tiradooduna waxay gaaraysaa 1.374 bilyan oo ruux. Hindiya waa meesha ugu badan ay ku nool yihiin dad muslimiin ah. Muslimiinta ku nool dalkaas Hindiya tiradoodu waxay gaarayaan ilaa 201 milyan oo muslimiin ah. Si kale haddaan u dhignana waa 11% guud ahaan dadka ku nool dalkaasi Hindiya. Waxaa jira 4,000 oo magaalo Hindiya gudaheed. Ku dhowaad 300 magaalo ayaa waxaa ku nool 1 milyan qofood. 3 ka mid ahna waxaa ku nool wax ka badan 3 milyan. Magaalooyinkaas oo idil waxaa ugu wada weyn Mumbai. Hindiya waxaa loogu hadlaa 1652 luqadood. Kaliya 22 luqadood ayaa rasmi ah. Waxaana ugu waaweyn labada kale Hindi iyo English. Hindiya waxaa loogu dhaqmaa ugu yaraan 9 diimood. Waxaan ugu waaweyn Islaamka, Hinduuga, Buddhiska, Masiixiyada, Sikhism iyo Jainismka. Lacagta laga isticmaalo Hindiya waxaa la yiraahdaa Indian rupees. Halka rupina wuxuu u dhigmaa ewer 14 ama 14 senti ee doolarka Mareykanka. Hindiya waxay caan ku tahay dhismayaasha cajiibka ah, gaar ahaan Taj Mahal oo ka mid ah dhismayaasha ugu caansan adduunka. Taj Mahal waxaa dhisay nin Muslim ahaa oo lagu magacaabay Shah Jahan, kadib markay ka geeriyootay xaaskiisa Mumtaz Mahal oo uu aad u jeclaa si uu ugu soo xasuusto. Dhismuhu wuxuu ku yaalaa Agra, wuxuuna ka mid yahay dhismayaasha ugu quruxda badan dunida. Wuxuuna ka mid yahay meelaha lagu soo dalxiis tago badan yahay caalamka. Sanad kasta waxaa u soo dalxiis taga in ka badan 2 milyan ilaa 4 milyan oo dalxiisayaal ah. Sidaan wada ognahay, Hindiya waxay kaloo caan ku tahay filimada. Filimkii ugu horeeyay ee Hindidu samayso waxa uu ahaa filimka lagu magacaabay Raja Harishchandra oo la soo bandhigay 1915. Intaas ayaa ku hakinaynaa. Kasoo dhiibo fikradaada ku aadan mawduucan. hadduu ku cajab geliyay like saar muuqaalka. Sidoo kale haddaad nagu cusubtahay nagu soo bir adigoo taabanaya calaamad subscribe-ka. Hana iloobin inaad taabado gambaleelka si aad u hesho muuqaaladeenu soo gelinay channelka isla daqiiqadeenu soo gelinay. Mawduucina maanta intaas ayuu ku egyahay. Intayna markaa kulmayno insha Allah waxaan idinkaga tegayaa fi amaanillah.